Salaamu calaykum. Waxaan jeclaystay intaanan mawduuca u gudagelin in aan idiin soo hormariyo 12 calaamadood oo lagu garto qofka garaadkiisu hooseeyo amaba doqonka loo yaqaano. Qabweyne aan meel dheer jirin wuxuu jecel yahay in dood kasta uu isagu ku guulaysto loogana dambeeyo. Dadka kale wuxuu ku qasbaa inay ra'yigiisa qaataan. Wax kasta oo wanaagsan, dood iyo muran ayuu ka keenaa. Ma laha saaxiibo dhab ah oo uu farxadda la qaybsado. Markuu arkay in laga gar helayo, waa uu isxanaajiyaa. Sidiisaba garma garna kama baxdo. Sax iyo qaladkiisuba waa wada sax. Raaligelintana ma qaato. Horumarka walaalkiis ama walaashiis wuu ka naxaa. Hadba qofkii markaa la jooga ayuu qofka kale ee maqan la xantaa. Wuxuu aaminsan yahay inuu isagu yahay qofka adduunka ugu aqliga badan. Wuxuu jecel yahay dadka oo dhammi inay isaga hoos yimaadaan. Haddaba waxaan si toos ugu gudageli doonaa mawduuceennan aan kaga hadlaynay dadka doqomada ah. Waxaanan kaga hadli doonaa 6 calaamadood oo si toos ah aynu diiradda ugu saarnay dadka garaadkoogu liito amaba doqonka loo yaqaano. 6 calaamadood oo lagu garto qofka garaadkiisu hooseeyo amaba nacaska loo yaqaano. Ma aaminsan tahay xilli kasta inaad tahay qof waddo sax ah ku taagan, dadka kalena ay khaldan yihiin? Ma ka carartaa mas'uuliyaddaada? Khaladaadka aad leedahayna dadka kale dusha ma ka saartaa? Ma ka badbadisaa oo ku faantaa caqli badnaantaada? Haddii aad su'aalaha jawaabtoodu haa noqoto, dhankaaga dib ugu laabo. Calaamadahan waxay ku kulmaan qof nacas ah oo kiisu hooseeyo. Ku darso, waxay dadkaas aad u jecel yihiin aflaamta anshax darrada ah. Qodobka koowaad ayaa ah khaladaadkooga dadka kale ayay dusha ka saaraan. Dadka oo dhan way khaldamaan. Qof khalad ka nabadgelayaana ma jiro, laakiin waddada khaladka loogu fakaro ayaa lagu kala duwan yahay. Dadka qaar waxay leeyihiin geesinimo ku filan, mas'uuliyadda khaladkoodana ku qirtaan, halka dadka qaar ay dusha ka saaraan dadka kale si ay mas'uuliyadda uga cararaan. Dr. Travis Bradbury oo ah alifaaga buugga Emotional Intelligence ee garaadka bulshada oo ka hadlay in qofku uu khaladkiisa dadka kale dusha ka saaro waxa ay ka dhigan tahay ayaa uu yidhi, marka aad dadka kale farta ku fiiqdo waa xilliga ay bilaabanayso in lagu arko qof aan mas'uuliyad qaadi karin inaad tahay. Waxa uu ku talinayaa in mas'uuliyadda khaladaadka uu qofku lahaa qaato, isla markaana uu ka fogaado inuu dadka kale dusha ka saaro. Daraasad ay samaysay jaamacadda Michigan ee dalka Maraykanka ayaa muujisay in dadka caqliga badan ay si ka duwan dadka kale khaladaadka ula dhaqmaan. Waxay u arkaan inay u tahay fursad ay wax ku kororsan karaan. Marka ay xaaladahan oo kalena ay soo wajahaan, ay ka baydhi doonaan waddada ay markii hore ku khaldameenna aysan mar dambe qaadi doonin. Qodobka labaad oo ah saamaynta Dunning-Kruger effect, inuu qofku caqli badnaan isku ammaano. Qofka caqliga badan uma baahna inuu dadka u sheego caqligiisa oo uu ku soo celceliyo aad ayaan u caqli badanahay, maxaa yeelay ficilkiisa ayaa ku tusinaya heerka caqligiisa isagoon is-sheegin. Qofka naftiisa buunbuuniya ee heerka garaadkiisa sheega inta badan waxa uu ku jiraa dadka caqligoodu hooseeyo. Waa arrinta loo yaqaano saamaynta Dunning-Kruger. Waxaa loogu magac daraa 2 caalim oo dhanka cilmi nafsiga ku takhasusay oo la kala yidhaahdo David Dunning iyo Justin Kruger. Waxay si wada jir ah daraasad uga sameeyeen arrintan, waxayna yidhaahdeen 4 cilmi baadhis oo kala duwan ayaa waxaa laga ogaaday in dadkii ka qayb qaatay kuwii ugu hooseeyey tijaabooyinka IQ-ga loo yaqaano, astaamihii lagu arkay ay ka mid ahayd inay si xoog ah u buunbuuniyeen awoodahooda maskaxda. Xitaa kuwii helay 12% waxay naftooda ku qiimeeyeen inay haystaan 62%. Dadka kale way ka carab adag yihiin kana cunsuriyad badan yihiin. Dadka garaadka sare leh dadka kale way dhiirigeliyaan wayna garab istaagaan, laakiin kuwa garaadka liito waxay sameeyaan arrintaas wax ka duwan. Inta badan naftooda inay muujiyaan ayay jecel yihiin. Waxay ka hadlaan xumaanta dadka
kale xukunka ayay dadka kula degdegaan caado ahaanna dadka caqliga badan qofna xumaan kulama degdegaan go'aan degdeg ah kama qaataan dadkana daraasad laga sameeyey gudaha jaamacadda Brock ee dalka Canada ayaa daaha ka rogtay in dadka caqligooda hooseeyo ay dadka kale ka af adag yihiin kana cunsuriyad badan yihiin daraasadda ayaa lagu sheegay dadka IQ-googu hooseeyo inta badan waxay u janjeeraan ciqaabta daran dadkan iyagaa ugu cunsuriyad badan marka ay dadka kale la macaamilayaan oo waa dad cuqdadi hayso dan kama galaan dareenka dadka kale iyo baahidooda dadka caqliga badan waxay ku fiican yihiin inay dadka kale la caadifoodaan waana tan keenta inay dadka kale ixtiraam badan u hayaan dadka aan caqliga badnayn waa taa cagsigeeda waa dad anaaniyad badan waxayna u badan yihiin mabda naftayda isagoo iska indhatiraya aragtida dadka kale Professor Russell James oo ka tirsan jaamacadda Texas ee dalka Mareykanka ayaa daraasad uu sameeyey oo ay ka qayb galeen 1,000 qof waxa uu ku ogaaday in dadka heerka IQ-googu uu sareeyo ay waxbixinta u badan yihiin iyagoon cidna abaal ka sugin waxay qiimeeyeen baahiyaha dadka kale waxayna u badan tahay inay ka jawaabaan si baahiyahooga ay u dabooli karaan dhanka kale dadka uu garaadkoogu hooseeyo ma fahmi karaan baahiyaha dadka kale oo ma qiimeyn karaan wax caawinaad ahna kumaba fikiraan haba yaraatee falcelintooda oo ah mid cadho iyo cadaawad badan haddii aad tahay qof falcelintiisu ay degdeg badan tahay waxaa loo baahan yahay inaad dib iskugu laabato dadka caqliga badan way ka xanaaqaan oo dabeecad aadanuhu ka siman yahay weeyaan laakiin caado ahaan dadka garaadkoogu hooseeyo falcelintoodu waa mid cadho iyo cadow tooyo badan oo xataa naf dhan uu ku goyn karo qofku waxay aad u daawadaan muuqaalada anshax darrada ah dadka caqligoogu hooseeyo arrintan waxaa dhici karta inaad la yaabto laakiin ra'yigan aasaas cilmi ah ayuu ku salaysan yahay culimo dhanka sayniska ah ayaa caddeeyey in qofka marka uu badsado muuqaalada aflaamta anshax darrada ah ay ragga ka dhigto doqomo iyo nacaso daraasad uu sameeyey macadka Max Planck ee horumarinta aadanaha ayaa natiijadii ka soo baxday ay noqotay in ragga si joogto ah u daawada aflaamta anshax darrada ah uu caqligoodu yaraado gaar ahaan qaybta striatum ee qorshaynta u xil saaran